shirkan jaraa'id maanta waxaan doonayaa inaan afar qodob oo laakiin aad u waaweyn aan kala hadlo. Number 1 horta marka ugu horeysa waxaan mahadnaq ballaadhan aan u dirayaa ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed oo sanad iyo badh kadib ogaaday faa'iidada ay Somaliland geeska Afrika ay ku leedahay. talabaad waxa weeyaan maxaa ahayd waxa aad iyo aad in baraha in media lagaga doodayay oo la lahaa Somaliland is wanaagsan baa loo soo dhaweeyay calankii baa loo dhigay muxuu ahaa de kale aragooda waa kii Maxamed Kaahin markii uu yimina yiri de maamul goboleed hada la nagu sheego wax alla wax ka jira ma jirto. Okay marka dootna in European balisiiro dul taagayna number 1 horta waxaan doonayaa inaan idin tuso calan la dhigo oo lagu soo dhaweeya wafdi Somaliland ama madaxweyne Somaliland maanta may ugu horeyn daahir riyaale sida arkaysa wafdigiisu uu hogaaminayay airportka markuu ka soo degay calanka Somaliland keligii muu taagnayn isagoo calamadii caalamka oo dhan buu ka dhex bilbilaya isagoo wasiirkii Ethiopian-kuna uu soo dhaweeyay wadarkaysan Google kaanad geli kartaa Somaliland heerka ay taagneed waad iska garanaysaan waxay gaadhay in Mareykanka maxay haydin the foreign affairs state minister muxuu ahaa inay inoogu timi in Hargeysa waa heerkeenu gaadhnay waxa weyn the secretary of foreign affairs for Africa waxa weyn maalintii ay airportka Igaal airport Hargeysa ay ka soo degtay laga soo dhaweeyay marka waxa weeyaan maxay ahayd yaanayn u qaadanin guul calankeeni baa meel laga taagay waxa aynu doonaynaa inaynu ogaano war calanka iyo waxaas wala dadka wala iskaga soo dhaweeyay nuxurku waa maxay nuxurku waxa weeyaan number 1 sanad iyo badh oo albaabku ka xidhnaa ba maanta horta laga furay marka loo eego maxay ahayd madaxweyne daahir riyaale saddexdii biloodba wuu tagi jiray ra'iisul wasaaraha Ethiopia way wada shiri jireen way wada fadhiisan jireen adigu laakiin wax weyn 1.5 years later sanad iyo badh ka bacdi oo albaabka garaacayay ba maanta laga furay masadleed albaabka laga furay taa laakiin albaabka hal furay maxaa lagu furay waa su'aasha la isweydiinaya tan waxa weeyaan maxay ahayd darkaysa waxa weeyaan statement kii ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha Ethiopia waxa xusud mudan eriyaasha la isticmaalay ay leeyihiin maxay ahayd madaxweynaha Muuse Biixi wuxuu aqbalay inuu si wanaagsan uu la shaqeeyo dawladda marka labada waxa la isticmaalay waa maxay maamulka Somaliland oo aqbalay inay dawladda federaalka ee Soomaaliya la shaqeeyaan hadaba waxa weeyaan inay kaahin wuxuu nagu yiri macna ma laha in la isticmaalo maamul waxaanay macnada marka aanay sameeynin waxa weeyaan marka la isbaaldhigo la yiraahdo maamulka Somaliland iyo maamulka Soomaaliya marka labadii la isbaaldhigo yes marka waxa weyn laba siman laakiin marka yiraahdo maamulka Somaliland oo la shaqeyn doona maxay ahayd dawladda federaalka ee Soomaaliya waxa weey farq weyn baa u dhaxeeya in la yareystana maaha taa maxaa ka sii xun khasada ugu weyn waxa weeyaan qoraalka ka soo baxay maxay ahayd statementka ka soo baxay filla Soomaaliya ee ay leeyihiin dawladda federaalka Soomaaliya waxay boogaadinaysaa sida madaxweynaha maamulka Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi uu u aqbalay inuu maamulkiisa iyo dawladda federaalka Soomaaliya ay si wanaagsan u wada shaqeeyaan wa exactly to oo maxay ahayd ra'iisul wasaaraha Ethiopia uu qoray iyo kuna maxay ahayd ay soo saareen waa maamulka Somaliland oo la shaqeynaysa dawladda federaalka ee Soomaaliya waxaan doonaynaa inaan ogaano goormaynu noqonay maamul goboleed waa mushakil haddaba 30 sanadood bay nagu qaadatay inaynu heerarka gaadhno oo maxay ahayd inay dawladda
Ethiopia ay inoo aqoonsatay inaynu nahay a de facto government inuu AU-du ay ina siisay observer status markay shirkooda weyn ay qaadanayso ay maxay ahayd sameynayso war goormaynu intaynu waxaasoo dhan ka nimi aynu noqonay maamul goboleed aynu waliba ku faanayno aynu leenahay maxaa ka macnaa waa cajiib weeyaan waxa kale oo aan aad iyo aad aan maanta ula yaabanahay waxa weeyaan wada shaqaynta wanaagsan ee Ethiopia lahayn walaaltinimada inaga dhaxaysay ganacsi baa inaga dhaxeeya xuduud aana maxaa ahayd xuduud weyn oo aynu dhinac walba u kala talaabayno bayno maxaa ahayd aynu haysanay saddexdii biloodba madaxweynayaasheenu way tagi jireen way la soo shiri jireen way la fadhiisan jireen goorma baynu waxaasoo dhan inta aynu daadinay aynu maanta ogolaanay hadda maanta aynu ogolaanay sida halkan ku xusan aan si wanaagsan idinku akhriyo waxa ay ku qoran waxa weeyaan inuu Muuse Bixi uu aqbalay accepted the Prime Minister's call to further strengthen the close working relationship between Somaliland administration and the federal government of Somaliland of Somalia. taas miyay leedahay wax kale oo la turjubaano waxa weeyaan maamul iyo maxay ahayd federaalka maxay ahayd dawladda Soomaaliya wax alla wax aad maanta ay aad sheegi kartida ma aad ku tilmaami kartida ma aad tuuri kartaa midna kuma jirto marka waxa weeyaan su'aasha imika la isweydiinaya waxa weeyaan number 1 19kii bishii June buu madaxweynaha qaranka Somaliland mudane Muuse Bixi Cabdi uu ka dhoofay Igaal Airport isagoo huwan sharaftii iyo maamuuskii qarannimada Somaliland shalay oo Jimco ahayd 22kii bishana wuxuu ku soo noqday isagoo magacii maamul Somaliland uu ku soo celiyay maxaa isagoo huwan oo xambaarsan oo waliba wasiirkeennii daakhiliga ina kaahin uu ku faanayo leeyahay maxaa ka macnaa isagoo isagu metelaya wasiirkii arrimaha dibadda oo ku darsaday inuu ra'iisul wasaarihii Somaliland uu noqdo marka waxaanu ka doonaynaa maaha ina kaahin maaha wasiirka arrimaha dibadda annagu waxaan doonaynaa inuu madaxweynaha mudane Muuse Bixi Cabdi inuu noo cadeeyo miyaynu tuurnay qarannimadeennii miyaynu qaadanay maamul goboleed goormaynu wada shaqayn yeelanay Soomaaliya goormaynu xoojinaynaa wada shaqayntan aad halkan lagu xusay ee qoran waxa weeyaan mugdiyaal fara badan baa meesha ku jira marka maanta inaynu ku doodno niraahno wala la soo dhaweeyo wala fiican iyo wacaynkan ma aha maanta waxa weeyaan had madow baqarnimadii Somaliland ku habsaday in la iftiimiyo la cadeeyana waa loo baahan yahay waxaan u sheegayaa taageerayaasha kulmiye war marka ay qarannimadeena noqoto wadani iyo ucid iyo kulmiye meesha ma joogo inaynu inaku isku jawaabnana maaha waa inay meel kaliya ka soo istaagno aynu iska celino cadawga ay Somaliland leedahay laakiin ina baraha meediyaha la iskugu jawaabo oo inaku gudaheena aynu iska cunno inaku qarannimadeeni aynu doonayno inaynu inaku midaysan aynu meesha aynu maxahayd ka muuqano marka waxaan leeyahay yaanay taageerayaasha kulmiye meel kasta joogan ha isku khaldin qarannimada Somaliland iyo inta yareeyo yotamka xisbiyada ka dhaxeeya wadanka gudihiisa wassalaamu calaykum